shisheeyaha dalalkooda waa ku dhintaan umana tagno tacsiibtoodaana ma tagno markii 180 iyo jarjar ama 200 in ku dhow oo wiil oo Soomaali loo soo diray oo sababta loogu soo diray Soomaaliya inay nabad ka keenaan ku saacidaan dadka Soomaaliyeed nabad inay helaan ay ahayd hal subax la dilo howl caadi ah iyo dad ajaanib ah dhintay iyo ma waxa soo haray marka dadkoodii waxay ku qanceen dagaal lagu jiray wixii yani collateral effect ama waxa dagaalka oo asbaabta dagaalka oo keeno aan la jeclaysan ayay kamid ahayd wiilashoodii inay dhintaan ay dhamaadaan goobtii dagaalka marka annagana hadii dad nooga dhintay dadkaasi abriyaha ahaadaan oo dad shacab ha ahaadaan ama ciidan dagaalamay ha ahaadaan ayaduna waa waxa aan la jeclaysan ama aan lagu talagalin ama aan la rabin ee dagaaladu ay keenaan marka mar walba hadii dagaal lagu jiro maalin walba waxa aad rabto iyo sida aad wax u rabto kaliya uma dhacaan marar badan dhacayaan in oo si aanan jeclaysan si aanan rabin si aan raali ka ahayn ay wax u dhacaan dalkeena waa dalkeena adawguna annaguna haystaa wuuna dilayaa maalin walba marka taasi waxaan u malaynayaa waxa ugu muhiimsan waxay tahay cadawga inaan dalka isaga kicino dhibaatadii ka dhacday ceel cadde ee dawladda Kenya ay dhibaatooyinka badan ee diyaaradeedu ugu geysteen dadka shacbiga wayna ku hoos timaadaa gobolka Gedo maxaad uga hadlaysaa arrintaas xasan waa propaganda iyo dacaayad aan sameey falay idanka Kenya iyaga meesha lagu laayay waxaan ogahay shacabka gobolka Gedo 3 qof baa ku dhimatay dagaalkaas oo dagaal dhacay ku dhacay iyo 4 neef oo xoolo ah haddii la helo hal qof iyo hal neef oo kale oo xoolo ah oo dagaal cadad duqeynteedaas wax ku noqday anaa qaaday mas'uuliyaddeeda ma baaritaan waan baarnay waxa ka hadlay xildhibaanada waxa ka hadlay maamulka gobolka ka soo jeeda kulli saxaafadda dhan bay ka hadleen ka raadiya saxaafadda way wada hadleen kulli dadku marka arrinta qurbo joogta iyo dadka diasporada ay banaan ka wadaan ee la leeyahay waxa la xaso taas ma ogta inaan waaqicin noqon rabaa antaas aan rasadeeda toona ma hada doonaysan been la sheego propaganda la waxay taas waxa ka dhacay tuulo barwaaqo oo balxaawo u jirta 60 kilomitir xarunta gobolkan u jirta 12 kilomitir duqeyn baa ka dhacday isla daraad sidoo kale duqeyn baa ka dhacday saaki duqeynta heedna wax qasaaro oo hadda dhacay ma jiraan ilaa markii masjidkii magaalada lagu tukanayay xilliga salaada laga baxay subax iyo gantaalo la dhaceen diyaaradaha Kenya sidoo kale magaalada gudaheeda guri kamid ah oo cidna ay waxba ku noqon yaa gubtay dawladda Kenya saaxiibada nahay annagu waxaanu aad iyo aad u fadhaweynaynaa oo mar waliba garab taagannahay oo taageeraynaa haddii aanu nahay maamulka gobolka la dagaalanka argagixisada iyo al-shabaab in lala dagaalo balse waxaan rabnaa dawladda derisaan nahay laba maamul gobolka ka jira gobolka in goobaha ay beegsanaysa tala aan ku leenahay waxaan gobolka Gedo ku dhex jiro dawladda Kenya xiriiray maamulka gobolka kala sameeyay tuulo barwaaqo guri kamid ah waa gubeen masaajidka gantaalada ku dhacayna ma qaadin sidoo kale tuulada 4 kilomitir tag u jiro oo burguud leeyahay 4 gantaala ku dhacday ma qarshin arrimaha ayaga waxa way dadka reer guuraaga caruuraha dadka reer miyiga madaxweynaha ma qarshin oo qarax sameeyna dhul waa garan kartaa qasaarada keeni karta ka maamul ahaan ma u gudbiseen dawladda Kenya cabashadan oo ma la xiriideen idinkoo kaashanaya maamulka Jubbaland in badan baan u gudbinay maamulka Jubbaland ee naga sareeyo xukuumadda madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha waa u gudbinay
sidoo kale dowladda Kenya xiriir baan la sameynay in badan arrinkaas ayaan wax jawaabi lahaa hadda kama hayn. waa goorma xilliga ay duqeymahan dhaceen? saakii ugu dambeysay 12 salaada subax duqeyn ayaa ka dhacday tuulo barwaaqo. haye maxaa khasaaro oo marka dadka deegaanka ka soo gaaray? ilaa markii ilaa hadda wax khasaara oo dadka ka soo gaaray hal guri oo gubtay oo shacabkii ka badbaaday unbaa ka jiro. sidoo kale masjidkii weynaa ee tuulada lagu tukanayay waxaa ku dhacay gantaallo gudihiisa ay ilaa xilligaas suran yihiin ma qarxin. arrinta annagu aan ka cabanayno waxaa weeye ka maamul ahaan dagaalka iyo la dagaalanka shabaabka waa soo dhaweynaynaa, cid kastoo la dagaalaysa gacan baana siinaynaa, maadaama gobolka maamul uu leeyahay in dowlad kasta oo amisom ka mid ah ay la xiriirto maamulkii oo ay weydiisay informationada iyo cadowga goobaha ku sugaya si loola beegsado madaafiicdan cadowga. deegaanada ay diyaaraduhu duqeeyeen yaa maamula? naga maamula. ma al-shabaab baa maamula mise maamulka Jubbaland ayaa jooga? ma xilligan maamulka Jubbaland gacanta kuma hayo tuulo barwaaqo. haddee maadaama iidan gacanta ku haynin meelaha ay diyaaraduhu beegsanayaan soo lisma dhihi karo diyaaraduhu waxa ay duqeynayaan meelo bartilmaameed u ah dadka dadweynaha iyo shacabka gobolka degan. nimanka shabaabka xoog bay ku haystaan qaybo ka mid oo tuulooyin yaryar ma jirto hadda gobol ama degmo weyn oo la dhihi karo way haystaan. waa la beegsan karaa shabaab goobta uu joogo. tuulo barwaaqa bartilmaameedkeeda waa inuu noqdo mid lala beegsanayo shabaab. intaasoo duqeynaa ka dhacday cid shabaab oo khasaare ay ku gaartayna ma jirto. dadkii baa cabanaya. sidee ku ogaateen idinku inay dadka ka cabanayaan maadaama iidan deegaankii gacanta ku haynin? annaga si toosay dadka noola xiriiraan wixii kusoo kordhay xaaladoodana mar welibana waa nala soo socodsiiyaan.